السلام عليكم سودا صاحبة كحرين كانالك أنا هراء أقول مدين أصحابت كحرين كانالك كم إنه سبسكرايب لك وحرام مانتين على الشرقة قابك كوبيد للهن باكجراوندكم وقالك أنا ويدك سنين جرين سكرين waxaan isticmaali doonaa Adobe Premiere Pro marka ugu horeysa waxaad tegaynaa YouTube waxaan soo degsanaynaa backgroundka ama studio anaga aan jeclaan lahayn muuqaalka inaan saarno hadda waxaan soo degsanaynaa studio template waxaan dhiganaynaa green screen studio desk kadib waxaan dhiganaynaa enter saa soo degsano marka hore waxaan dhiganaynaa right click copy video URL kadib waxaan tegaynaa website-ka savefrom.net kadib linkiga waxaan dhiganaynaa paste kadib linkiga waxaan dhiganaynaa paste kadib download kadib markuu dhamaado waxaan dhiganaynaa show in folder kadib waxaan dhiganaynaa cut waxaan geysanaynaa folderkan ee qoranta studio isku magac waaye magaca ka beddelaa kadib waa save gareynaa kadib waxaan geynaynaa postka studio waxaan furinaynaa applicationka aan ku edit gareyn lahayn waxaan furinaynaa Adobe Premiere Pro waxaan samaysanaynaa project cusub waxaan u baxsanaynaa green screen project okay kadib project waxaan geysanaynaa qaybta kore soo aragno kadib waxaan samaysanaynaa sequence waxaan dooranaynaa 1080 kadib projectiga si uusan isku qasmin marka hore waxaan diyaarsanaynaa folders kalibiska anaga edit gareyn lahayn iyo studio waxaan samaynaynaa mid kale oo green screenka kadib waxaan soo qaadaynaa datadan libiska anaga hadda laba haysana labadana soo qaadaynaa waxaan geynaynaa Adobe Premiere Pro kadib markale waxaan soo qaadaynaa green screenka labada muuqaal green screen markale waxaan soo qaadaynaa studio marka hore waxaan soo qaadanaynaa muuqaalada green screenka waxaan dhiganaynaa keep existing hadda waxaa haysanaa muuqaal green screen muuqaalkaaga hadduu saan yahay ama hadduusan fit ku ahayn waxaad dhigaysaa right click kadib waxaad dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay scale to frame size cabirka waa sima mar labaad waxaad soo qaadanaysaa clip kale mar kale waxaad soo qaadanaynaa studio asna waxaad dhigaynaa right click scale to frame hadda waxaan iska jiraynaa hordhac muuqaalka waxaan reebinaynaa kaliya green screenka studio hadda anaga waxaan qaadanaynaa kan waxaa isticmaalaysaa left arrow iyo right arrow markaan tagno meesha ku bilaabanayo muuqaalka waxaan dhigaynaa C kadib waxaan dhigaynaa cut inta ka dambeys waxaan dhigaynaa delete dhamaad clipka markaa tagno waxaan dhigaynaa markale C cut inta soo harsi delete markale waxaan soo qaadanaynaa clipska anaga rabno inay kasoo muuqdaan green screenka markale waxaan samaynaynaa processkeeda right click scale to frame cabirka weli hadduusan sinayn markale waxaad dhigi kartaa window edit controls waxaad taabanaysaa clipka kadib waxaad dhigaysaa scale ama right ama double click dheh
kadib geesaha weyne marka dhamaysid muuqaal kadib enter leh marka waxa tagaynaa clip kale clipkan wuu saxan yahay clipkan waxa qaadanaynaa qayb kamid ah la waxa jiranaynaa inta kale waxa iska dhigaynaa delete clip kale asan inta delete iska dhigaynaa waxa qaadanaynaa ilaa intan marka inta kale delete hadda waxaan rabnaa background green screen ka inaan tirno marka hore waxaad tagaysaa effect hadaysan ku dooranay window kadib waxaad dhigaysaa effects kadib waxaad dooranaysaa video effects waxaad sii dooranaysaa key in meesha ay qoran tahay kadib waxaad dhigaysaa ultra key waad soo qaadaysaa waxaad geynaysaa clip korkiis kadib waxaad u jeedaa ultra key effectiga ultra key inuu furmay kadib waxaad soo qaadanaysaa eyedrop toolka kadib green screen ka waxaad siinaysaa click hadda waxaad u jeedaa green screen ka inuu tirmay laakiin gadaal waxaad u jeedin waxyaabo yar oo green ah ساكواس ugu baabiisid wali waxa haysta options badan mid generation kana wax badan ka bedeshid hadda badana waxa arkaynaa in xitaa sawirku uu qarsamay sidoo kale waxa iska fiirin kartaa in muuqaalkaaga uu qaldan yahay in kale si aad u aragto effects inay saameeyaan clip waxa ku dhufinaysaa composite kadib waxa ka dooranaysaa alpha channel waxa laga rabaa objectiga ama sawirka inuu ahaado white inta ka dambeysana waxa laga rabaa inay black ahaadaan hadda sana daarad waxa arkaysaa in white inay soo noqdeen waxa laga rabaa inay black noqdaan sawirkan inuu white ahaado bas hadda waxa u jeedin sawirka kaligiis inuu white yahay dhammaan inta ka dambeysay inay black tahay marka waxa tagaysaa alpha channel kadib waxa dooranaysaa composite hadda waxa u jeedaa background inuu nadiif yahay dhammaan clips kale xitaa inaysan saameynayn background wax walba ka dambeeyay inay soo bixi doonaan qaab clear ah marka la processki hadda amal waxa sameeynaa clipka kale asna waxa soo qaadanayna ultra kadib waxa dulgeynayna clipka kadib waxa sameeynaa processki hadda eyedrop ka soo qaadanayna waxa siinayna click composite ka tagayna waxa dooranayna alpha channel dhammaan qaybaha white oo ka dambeeyay sawirka waxa ka dhigaynaa black هدارت هالمرة waxaa taaban kartaa int wuxuu noqonayaa reset qaabkii hore ku soo laabana shadowga tirina dhammaan inta kale waxaa laga rabaa black oo toos inay ahaadaan kan waxaa dhiganaa marka la reset qaabkiisa hore ku soo celinayna كنا حاليا مركز الريزت asna markale waxa ka dhignay white dhammaan inta ka dambeysana waxa ka dhignay black markale waxa tagaynaa alpha ga kadib waxa dooranayna composite hadda waxa u jeedin clear inuu yahay sawirka kaliya inuu si fiican u muuqdo ama clip dhammaan inta ka dambeysana black yihiin markale waxa tagaynaa studio anaga rabno in green ka aksarna kadibna ageeno muuqaaladan iyo clips asna waxa sameeynaa process ka حاسين كليك كدي واحد دورنا الفا
kadib waxaan soo qaadanaynaa clipska hadda saa u kala reebno labadan haba waxaa dhigaynaa right click unlink waa kala qaadanaynaa kan kor is geenaynaa kan right click unlink soo qaadanaynaa labadan is dhex gelinaynaa kan hadda cabirkiisu weyn yahay saa u yareyno waxaa dhigaynaa double click kan kor aan noo dooran weli waxaan furaynaa motionka kadib waxaan yareynaynaa scale-ka kadib labada clip waa is dhex gelinaynaa طبعا sida photoshopka camal layerska waa kan laakiin tracks waa wuxuu leeyahay audio track iyo video track soo qaadayna xageynana video track kala hoostiisa hadda waxa u jeedin clipkan inuu si fiican meesha u galay wax yar yareynayna hal mar cabirka wax yar inta u badinaynaa ilaa inta gelinaa bas kadib booskiisa ku soo celinaynaa kadib waxaan iska delete gareynaynaa codkan mid kale waxaa dhinaca sin unlink codkiisa waa iska delete gareynaynaa waxaan rabnaa clip keliis isna waxaan rabnaa inaan yareyno bas soo jiidana ama waxaan tagi karnaa scale positionkaasi ka karnaa dhinacana u badinaynaa scale-ka inta markay tahay waa qaadayna waxaa geynaynaa screen kale kan weli kor u qaadaynaa haddana inta waxaan soo gelinaynaa track kale si isku cabir u noqdaan saa ogaatid startigiisa ama endigiisa waxaa taabanaysaa calaamada oo up arrowga kadib waxaa ku geenaa start down arrow haddaa taabatiin endiga ku geenaa kadib waxaa dhiganaa cut studio kadib waxaa dhiganaa delete sidoo kale waxaa jira qaab kale oo cut aa ku samayn karto waxaa dhiganaa control key meesha aad joogto wax ka dambeeya dhan waxaa ku samaynaa cut kadib waxaa dhiganaa delete hadda waxaa haysanaa clip isla socda oo dhammaystiran isku mar bilaabanayo isku mar dhammaanayo markale waxaan soo qaadanaynaa clipska haddii aan green screenka aan ka saarnay ayagana waxaan sameynaynaa unlink waxaan iska delete gareynaynaa audio igala socdo kan kale waxaan sameynaynaa sin right click unlink labada clip aan soo qaadanaynaa select waxaan rabnaa inay kusoo muuqdaan clipyada agtood video track waxaa dhiganaa right click add tracks laba track oo noogu daray waxaa soo celinaynaa kii hore hay labada clip ayagana waxay dhex galeen clipkii kore screenkiisa waxaan rabnaa inaan ka saarno labadan ayaga waxaa ka dhigaynaa labada ugu sareysa kii hore soo celinaynaa ayaga waa yareynaynaa bas kan kale aa tegaynaa mar kale kasna waa yareynaynaa isna qaadayna waxaa geynayna geeskan
kadib sidan wax ugu saarnay background-ka studio iyo clipska marka ayagana si clip loo bilaabaan oo dhamaadaan waxa sameeynaa alt kadibna alt kadib waxaan control key insert iska dilgareynaa kana hadina control key hadda ayagana waxay noqdeen clipka la bilaabanayaan clipka la dhamaanayaan marka waxaan rabnaa clipkan hadda aan diyaarinay inaan export ku sameeyno meesha ugu dambaysa tagayna waxa taabanayna i kadib waxa taabanayna down arrow marka waxa taabanayna o hadda waxa sameeynaa select oo ah in iyo out kadib waxa dhignaa file waxa dooranayna export kadib waxa dhignaa media ama waxa sameey kartaa shortcut inaad taabato control m kadib waxa dooranayna 8264 sequence 1 ku qoran magaca ka bedelinayna waxa qorayna green screen project kadib waxa dhignaa save kadib waxa dhignaa export ama waxa soo dooranayna quality-ga YouTube 720 ama YouTube full HD ama dhammaan size kala mid ka adiga ka heshid anaga hadda waxa dooranayna YouTube 720 kadib waxa dhignaa export meesha ku save gareysan email kale file waxa dhignaa export waxa dhignaa media file kadib waxa taabanayna sequence-ga waxa copy gareynaynaa path-ka ka koreeyo title-ka kadib waxa tagaynaa meesha clip-ka soo qaadnay ama meel kamid ah computer-kaaga kadib waxa dhigaysaa paste enter hadda waxa ujeedaa muuqaalka ugu dambeeya soo save gareyn inuu yahay green screen project right click open with VLC waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan haddii aadan ka mid ahayn asxaabta ku xiran kanaalka ka mid noqo asxaabta ku xiran oo subscribe